tillaabooyinka muhiimka ah oo qaaliga ah oo waajibku inaga saaran yahay waxa weeyaan inaynu ilmaha ka badbaadino oo ka ilaalino waxyaalaha maanta jira oo waxa weeyaan telefisyoonada guryaha la dhigay iyo dishka loo xiray internetyada mobilada waxa lagu shubahayo aflaamta la fiirsanayo waxyaalaha ma taqaanaa maanta meel walba yaala inaynu kala dagaalano ilmaha oo waxa ugu horeeya uu yahay dishka inta guriga la saaray telefisyoonka ilmihii wax walba ka fiirsanayaan wax alla wixii loo soo dhigay oo khayr iyo qur'aan ahaa oo maskaxdiisu ay ku fakari lahayd markuu laba jeer bahalka loo daaro oo laba filin iyo saddex filin uu ka fiirsado bay masaxmayaan wax alla wixii loo soo dhigay laba markaas wuxuu caado ka dhiganayaa ilmahaasi oo ku barbaaraya markuu bahalkan u jeedana waa faraxsan yahay wuxuu u hayaa didaal iyo juhdi buu u hayaa saacadaha ka lumahaya ma fahamsana haddii la yahay qur'aanka aadna oohin buu la dhacay saas iskaga day wareegaya kabtii baa maqan buug baa iga lumay hooy ma dhaqaaq karo macnuhu saacada inuu dilaa ka baqahaya bari adigu ikkaxe waa iska day wareegaya saa haday u sii jeesatana dhag u daaranaya bal ilmuhu waxay ku takhasuseen aabayaal badan oo la jecel inay ilmuhu ka daawadaan qaybta wacdiga iyo muxaadaraadka iyo intay ka fiirsadaan saa ugu keena oo marka hore niyad wanaagsan ayaa ilmuhu intay ka badiyeen waxay ku takhasuseen markuu ilida ka soo galo in qur'aan la saaro sheekh weyn oo wacdinayana la saaro oo markuu soo galta u fiirshay ilmihi oo fiirsana u yahay ma sha Allah ma sha Allah nusayi saa qolkiisa markuu galan waa la bedelaa dhag kala la saaro way barteen ilmuhu ku takhasusay way yaqaanaan haba keenin gurigaaga maxaaba u keenaysaa marka hore walidaalika ahlu cilmiga waxay ka hadleen oo fatwo ka soo saareen bahalkan fasaadkiisu uu ka badan yahay islaaxiisa iyo khayrkiisa iyo fasaadkiisu uu badan yahay guryaha in la dhiga inay muharram tahay waxayna ahlu cilmigu cadeeyeen qofkaasi inuu soo gelayo xadiidkii nabiga sallallahu alayhi wasallam oo nabigu yiri ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة قف دنتا مجرى مركو دمانا هيو أساقو ضدك ومسؤول كأها خياني إلا إله الجنة كحرما مركا سي وحيا فمن الخيانة العظيمة إدخال هذه الأجهزة على بيوته وحاكم ذا خيانة وين أو الميس خياني oo dayacay waxa kamida jihaaskan iyo qalabkan uu guriga u dhigay oo waxa weeyaan ay ku mashquulinahay qofkii wax alla wixii akhlaaq dugsiga looga dhigay asaga ka bedelay wuxuu masaajid ka bartana asaga ka tirahay wax alla waxa xun oo dhan waa ka helay u fiirso waa ka helay marka waa khatar adiga marka naftaada u nax waxa lagu mamarsiyoda derisku ka soo fiirsanaya hadaa u diida anigu ma istaagahayo waxaan ma deynahay oo yaacayaan maanta deris ka soo fiirsanaya هذا أدو قريقا كم ممنوع أو درس أو لوطو أديك الدم بالمليت إلهي أكتي سوا بتبادس وهذا جهاز كان باطل كحرام تقول هذا كين هادو درس كاجر لوطو يا هادو ملك لوطو أو كصافير صدا هرت النفط هذا أدو بتبادي وحكبت بادي ساعة قبرك مركل لجوه اللي جوا يديو ويا عيادي اللي جوا دي بواد خياط وحد كو خياط أنا في السادين شواب له مهلس وحي ولا قرصه iyo wuxuu meel kale la aado waxa weeyaan adiga amaam Allah kuma saar laakiin tarbiyadooda iyo gacan ku hayntooda laga rabo